masiibooyinka qaraxyada iyo weerarada marka ay dhacaan waxa ay saameyn ku yeeshaan qoysas ay mar qura iska raacaan dhowr qof kuwaasoo dhibaato miisaan culus leh ay la soo diristo iyagoonan horay u sii saadaalinaynin. hooyo Sahre Macalin Cabdi waxa ay ku weyday labadeeda gabdhood ee Iimaan Mahdi Cali oo ahayd 12 jir iyo Ifraax Mahdi Cali oo iyana ahayd 13 jir weerarkii Pizza House, waxaana dhaawac uu ka soo gaaray Iftiin Mahdi Cali oo haatan lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalaadka ku yaala magaalada Muqdisho. hooyo Sahre Macalin waxay ilmaheeda ka soo tageen afurka kadib markaasi oo ay soo raaceen gabar ay qaraabo ahaayeen oo ay sagootinayeen, hase yeeshee iyaduna ku dhimatay isla goobtaasi. waxa hooyadaasi ay ii sheegtay in ilmaheeda ay ku soo korisay muddo 11 sano ah agoonnimo, waxa iyadoo ay ka muuqato daal iyo murugo badan kadib dhowr iyo 20 saac markii weerarka uu dhacay ay iiga warantay sida markii hore ilmaheeda uga soo tageen guriga. afur ay diyaariyeen waa wada afurnay xideen hooyo gabar oo waxa joogtay qaraabada ladana aan raaceena waxay dhahday Pizza House kunigay ma tagin waa soo arka sawir ku soo galaa waa gartay bas waxaan ku dhahay hooyo habeen waaye anina Madiina Sacuudi waa daalana Madiina raaci kareen habeen kale nooga dhiga anaa wada ladan anoo idin la socda idin geena sawir markaas laga soo qaado waxay dhahday waa diyaariyay habeenta marbi caawa raba inaan Pizza House soo arko sawir ka soo galo haddaan bixina anaa ka codsaday habree caawa kaliya ka codsaday gabadh walaacan way ahayd marka waxaan sidaa inta sidee ka codsaday ordo waxaan dhahay ilaahay waxaan idin mutay ordo is ilaaliyo hal saac kadibna ay idin weyneen insha Allah ay dheen way maanina wallahi ballan waay waa sidee isku raaceen markay meeshaas irad ugu galeen masiibadan ay la kulmeen qaraxan. marka adiga wax warama ka heshay intay gudaha ku jireen oo qaraxa uu dhacay? ha qarax markuu saas u dhacay waa wacay markay wacay gabadh weyn ay iga qabato hadda dhaawac waxay hooyo waa noolnahay laakiin meesha qaraxa ku dhacay oo lagu baabu'ay meel laga soo bax ma leh. iyadoo hadalka sii wadata ayaa waxa ay tiri waxaan dhahay hooyo isdiji ana bajaaj soo qaadana waa idin imaana markaas dhaad hooyo meesha ma soo geli kartid iyadoo oo taleefka igu dimisay ilaa saacadii 12 ku soo codkeed ma maqalin saacadii 12 hal mar soo hadashay ani hadda ilama soo hadin gabar ila socoto meesha ila joogtay xalay ila dhafartay ee soo wacday hadhaadeen Sahre abaa aniga waa noolahay dhaawac igu yaalo gabdhihii way wada dhinteen hooyaniya laga naxsanin waa gartay aniga marka gabadha waa ashahaadatay marka ashahaadatay way shaki waxa dhan maxaa lagu soo sheegay markaas ay dhan wax ma liiga soo sheegan way fiican yihiin iyalka ilaahay u noqo waa istaagay laba rakac salaad sunan tukada ilaahay iska bariyay ayadoo dhaawac ay rabtay liiga soo galay wiilasha ciidanka waxay dhaheen gabadha tan waa ku badbaaday waa dhaawac kuwa kalmeed waay. waxa hooyo Sahre ay sheegtay in gabdhaheeda aysan ku dhimanin oo kaliya qaraxa ee mid kamid ah madaxa laga toogtay. kii labaad way ka badbaadeen kii saddexaad oo meesha fool ciidanka oo nasa imaadeen oo alfa group ciidanka marka meesha galayeen nimankan korontada ay wada jireen way isdiyaariyeen gabdhaha waxay dhaheen qolan isku keengeeyeen qolka marka la isku la tagay waxaan dhahay bambadan afka ka jira idinka dhan idinku baabeena waxaan dhahay adeero noo qaleehana dilini wuu naga tagay intuu nagu qosle mid kala imaaday gadaal ku toogtay gabdhihii marka hal gabadha kale oo dhees adeero ha idilin qarax ma ku dhiman adeero ha idilin markay qarxinayeen oo meesha la soo galay bambo wuxuu ku dhuftay baxbado ku dhuftay caadi madax ugu toogtay madax dhinac fuqay mid kalena bambo ku dhuftay bambo qaybta dhabarka hilibka dhinac kala go'ay bambo ahayd taas waa ilaaha iga jecel salaadkiis xaalkii lama qiyaasay qof laba gabdhood oo 12 jir 13 jir gabdhaha hadda soo baxayaan oo quraanka labadaba way wada dhameeyeen naqtiina ii dhameeyeen oo hadda dugsi sare ii dhiganayeen ahaayeen. Mukhtaar Cabdikariin Cabdullaahi waa mid ka mid ah milkiilayaasha maqaayadda la weeraray ee Pizza House wuxuu ii sheegay in 3 ka mid ah shaqaalahooda oo mid uu ahaa ajaanib Suuriyaan ah oo ahaa maqaayadda ninkii cuntada u karinayay in halkaas ay uga geeriyoodeen. wuxuuna sidoo kale sheegay in dhowr iyo 10 qof oo rayida ay maqaayadda gudaheeda iyo banaankeeda ay ku dhinteen kuwaas oo ay labada gabdhood ee haatan aan ka waramayna ee walaalaha ay ka mid ahaayeen. wuxuu ii sheegay in maqaayadda ay soo galeen dableyda al-shabaab markii ay qarax banaanka ka bilaabeen kadibna ilaalada maqaayadda aad u yareed awgeed ay u suura gashay inay gudaha u soo galaan maqaayadda. Mukhtaar Cabdikariin Cabdullaahi waxa aan weydiiyay waxa ilaalo aan xooganayn ay ugu sameyn waayeen goob sidaas ay u qurxiyeen oo dad aad u fara badan ay isugu imaanayeen. wallahi marnaba ma ku fikirin waayo meesha isma dhihin meeshana target because meesha ma ahayn meel siyaasiyiin imaadaan ma ahayn meel nooc kale imaadaan meesha waxay meel dhalinyaro
imaadaan dadkan oo teen age-ka isku imaado oo isku sawiraan meel keliya waxaa waaye iska qurxoon oo cunto laga cuno oo isku sawiro. maxaa keenay ayay kula tahay in muddo intaas la-eg ay gudaha ku dhex jiraan oo ay ku dhex dagaalamaan kooxdii soo weerartay xarunta meesha maqaayadda? wallahi waxaa keenay waxaan isleeyahay meesha markii uu qaraxa dhacay ayaa waxaa dhacay nalkiyaa damay. markuu nalka damay nimanka way soo galeen meesha mugdi ahayd, askarta dawladda way imaadeen, meesha way la dagaalameen. waxaa marka meesha marnaba meel oo iftiinka nimanka looma jiidin, meeshii ku dhex jeeda marka askarta way la dagaalameen. subaxdii nimanka meesha lagu dilay ay dhinteen. dhalinyarada ku shirkoobay maqaayadan ayuu Mukhtaar ii sheegay inay yihiin dad aanan qurbaha u bixin, hase yeeshee ka mid a dadka magaalada Muqdisho ee muddada usoo dhabar adeegayay dhibaatooyinka dalka. Mukhtaar waxa aan weydiiyey siday u arkaan khasaaraha soo gaaray haatan iyo haddii ay ku dhiiran karaan in ay dib u bilaabaan ganacsigoodii. wallahi meesha hanti badan ay gelinay dhawaad Iran 150 kun lacag gaarayso, laakiin meesha dhan way burburtay. waa haddii soo bilaaway. sidee marka arrintan u dhaawacaysaa ganacsigiina iyo hankii aad u hayseen in wadanka wax qurux badan aad ka samaysaan oo dhalinyarada iyo dadkii oo dhan ay ku taamayeen oo imaanayeen? wallahi waa dareemi kartaa, waa aad in lagu gudaysaa meesha. dhalinyaro oo magaalada Muqdisho ku dhashay ku koray oo weli ka bixin ayaa meeshan samaysay. marka waa dareemi kartaa in meeshii aan isdhehayna ku haminayna inay wax ka faa'iidino dadkan ay ku nastaan dhibaatadan ku dhacdo. marka waa insha Allah meeshan waa anaka waa marnaba kan jibmeeno sidiisa ka qurxan ka dhigana insha Allah. sida qoyska Sahra Macalin Cabdi ayaa weerarada iyo qaraxyada dhacaya had iyo goor waxa ay waxyeelo ka soo gaartaa dad rayid ah oo aan iyagu waxba galabsan.